Asalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiiseysa Konami ama eFootball meel walba adduunyada ku joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub halkaad naga daawanaysaan waa Yakiboy Gamer anigana waxaan ahay saaxiibkiin walaalkiin Yakiboy mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha maalinta beri ah oo arbacada ah la keeni doono arbacada ma update baa jiro sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa maalinta khamiista players of the week markaasi la keeni doono iyo xog kale oo muhiim ah oo markaasi dhanka iyo eFootball ka imaatay intaan muuqaalkan gudaha u sii gelin muusow waxaan ka codsanaa inaad muuqaalkan like sarto channelkana aad subscribe dhahdo gambaleelkana aad furato si muuqaal walba oo aan soo dhigo uu kuu soo gaaro dhammaantiin waxaan idinka codsanaa sahalkan ugu jeedaanba youtube-keen wuxuu sii marayaa 2560 ilaa 61 ayuu sii marayaa 3000 waxaa inooga dhiman 400 wax ka yar please waxaan ka codsanaa in aad subscribe ii saarto haddii aad subscribe ii saartayna waxaan ka codsanaa inaad muuqaalkan like sarto aad u share garayso saaxiibadaada kale oo xiiseysa eFootball-ka ama Konami aad ayaa u mahadsantahay intaas haddii aad ii samaysay muuqaalkeena ayaa gudaha u sii gelaynaa waxaan ku bilaabaynaa players of the week markaasi la keeni doono maalinta khamiista ah horta waxaa isweydiinaysaa saa thumbnail-ka aa u jeedo players of the week waxaa saaran cancel European Championship-kana waxaa saaran cancel waxa u saaray oo dadka badankooda ay fahansaneen waxaa waaye haddii aan ku fahansiiyo maalinta beri ah oo arbacada ah oo sanadka cusub ay ku aadan tahay lama keeni doono wax players ah players waxaa la keeni doonaa maalinta khamiista ah saa ku baranayba maalinta khamiista ah ayaa la keeni doonaa players of the week laakiin lama keeni doono maalinta beri oo arbacada ah oo sanadka cusub kooda bisha koowaad ay ku aadan tahay wax players of the week lama keeni doono laakiin players of the week waxaa la keeni doonaa khamiista ayaa la keeni doonaa isla fahanno marka khamiista players of the week la keeni doono maxaa waaye wajahadooda sidaan inay u muuqato ayaa la rajaynayaa Haaland ayaa u horay Mohamed Salah labada bisha ayaa la keeni doonaa oo maalinta khamiista ay ku aadan tahay sidoo kale playerska la keeni doono waa kuwan 11 qof oo halkan ugu jeedo oo markaasi u horay Bukayo Saka Lewandowski raggan oo halkan hadda ugu jeedo ayaa markaasi la leeyahay maalinta khamiista ah waa la keeni doonaa sidoo kale waxaa laga yaabaa in playerskan haddana la keeno oo markaasi u horeeyo Haaland ayaa la leeyahay ayagana maalinta khamiista ah markaasi waa la keeni doonaa sidoo kale players of the week oo markaasi u horeeyo ninkan la yiraahdo Diaz ayaa markaasi la leeyahay ayagana maalinta khamiista ah waa la keeni doonaa saddexdaas baag oo players of the week aan kula wadaagay mid ka mid ah ayaa la keeni doonaa maalinta khamiista ah qalbigaa ku hay saddexdooda la wada keeni doono mid ka mid ah ayaa la keeni doonaa 11 ilaa 12 kale ilaa 12 kale aa kula wadaagay mid ka mid ah ayaa la keeni doonaa sidoo kale waxaa leeyahay Gareth Bale oo baagan 2025 loogu dabaaldegay ayaa la keeni doonaa oo markaas u horeeyay Bale iyo Shevchenko Roberto Baggio ragga culus baa ku jira halkan ayagana waxaa la leeyahay maalinta khamiista waa la keeni doonaa Bale oo markaasi garoonka dhexdiisa uu ku gaarayo 107 ayaa la leeyahay markaasi waa la keeni doonaa free ayaa lagu siin doonaa markaasi ku tuuranaysid Bale oo 107 gaarayo oo markaasi big time ah in free lisku siiyo shirkadda Konami taas ma sameyn doonto mana dhici doonto waxaa laga yaabaa Bale in saddex qeyb ay u keento saddexda qeyb ay markaasi u keeni doonto asagoo big time ah oo markaasi kun koonis lagu furanayo oo sida baagiska ay u keeni jirtay markaasi ay u keento sida Torres iyo ragga kale markaasi keeni jirtay sida ay ku keenaysay oo markaasi 500 oo koonis ilaa ay 1000 koonis markaasi lagu furanayo qaabka labaad oo markaasi Bale ay u keeni karaan waxaa waaye in markaasi aad ku furato 100 koonis ilaa iyo 900 oo koonis aad tuurato oo 50 qof dhexdooda la soo geliyo new year 2025 ka markaasi IBX-ka la keenayo markaasi ay ugu dabaaldegto shirkadda ayaa la leeyahay sidoo kale waxaa la leeyahay Bale shirkadda waxay u keeni kartaa in 250 qof dhexdooda la soo dhexgeliyo oo markaasi 100 koonis ilaa 900 oo koonis markaasi aad ku furanaysid sidoo kale waxaa kula wadaagi doonaa warqadan saa halkan ugu jeedaba waxaa la leeyahay 31 bisha oo maanta ah oo caawa 6 saac habeenimo markii la gaaro oo bisha kooda ay bilaaban rabto ayaa gameka update loo diri doonaa marka waxaa la soo fasixi doonaa kooda bisha koowaad maalintii ayaa la soo deyn doonaa subaxdii oo dhan wuu xirnaan doonaa ayaa la leeyahay sida gameka
khamiistii oo kale aa ku barateen oo kale ayaa la samayn doonaa geemka oo dhana update loo diri doonaa ayaa la leeyahay warbixintan waa boqolkiiba konton way dhici kartaa in markaasi updatekaas si toos ah loogu diro oo geemka la update gareeyo oo markaasi play store ama app store aad kala soo degto sidoo kale mana dhici karto in markaasi geemka la update gareeyo sidoo kale waxaa la leeyahay qaybta oo giftiga markaasi shirkadda ay bixinayso oo kooda January ay ku aadan tahay maalinta beri oo Arbacada giftiga waxaa la leeyahay IBIGIS iyo Showtime ayaa markaasi la bixin doonaa IBIGISka markaasi la leeyahay waa la keeni doonaa IBIGIskana waa halkan hadda ugu jeedaan oo u horeeya Shoshango Roberto Baggio Figo Ze Roberto adi raggan ayaa la leeyahay markaasi ayagana IBIGIskan waa la keeni doonaa waa IBIGIskan sina uma baaqan doonaan waa in 2025 loogu dawaaldego in markaasi IBIGIsyada la keenayo free markaasi la keeno adi IBIGIskan ayaa la leeyahay waa la keeni doonaa sidoo kale waxaa la leeyahay Showtime-ka oo markaasi la keeni doonana saddexdan rag oo halkan ugu jeedaan oo markaasi u horeeya Darwin Nunes iyo raggan kaleeto labadan kaleeto oo halkan ugu jeedo ayaa la leeyahay ayagana waa la keeni doonaa warbixinteenina maanta halkaas ayay ku agtahay intaas ayaan jeclaystay inaan markaasi idin la wadaago please waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like sarto channelkan aad subscribe dhahdo gambaleelkan aad furato si muuqaal walbo aan soo dhigo markaasi uu ku soo gaaro